وبركاته soo dhawaada dhammaan khiyaarta ku xiran channelkeena Explore Option Somali inshallah halkan waxaan kaga hadli doonaa casharkan ku saabsan sidee bayer loo samaystaa oo looguna xidhaa perfect money bayer iyo perfect money lacag lagu kala diraa okay halka markaynu joogno waxaan doonaynaa inaynu isla sinno bayerkan iyo perfect money-gana lacagna isku dirno inaynu perfect money lacag ka soo diri karno aynu bayer ku diri karno inaynu bayer lacag ka soo diri karno oo perfect money lacag ku diri karno okay halka marka la joogo waxaa jira website inoo fududeynaya inuu labadan lacag iskugu diro kana uu kan lacag u diro kana uu kan lacag u diro okay website-kaasi waxa weeyaan waa website exchange-ga inoo fududeynaya linkigiisa waxaan soo dhigi doonaa website-ka linkigiisa waxaan soo dhigi doonaa waxa loo yaqaan description-ka iyo comment-ga u horeeya insha Allah okay halka marka la joogo website-ki waa kan website-kan baad imaanaysaa marka website-ka timaadid website-ka linkigiisa waxaan soo dhigay description-ka fadlan haddaad u baahan tahay inaad website-kan aad gashid perfect money iyo bayerna lacag ku diristid inaad website-ka isticmaali doontid okay intaan website-kan gelin sidee loo samaystaa bayer okay bayer sidaad ogtiin waxaa laga soo degayaa google-ka waxaad ku qoraysaa play store-ka bayer kadib markaad bayer la soo gashid oo sidan u soo dhex gashid bayer waxaan hadda imaanaynaa bayer oo aad saan u imaanaysaa bayer waxaad ku xidhaysaa waxa loo yaqaano email-kaaga iyo sheegay iyo phone number-kaaga email-ka markaa ku xidhid ood ku soo soo upgrade-sid saana u soo dhex galaysaa bayer okay bayer iminka aad tagno transaction history-geena on soo dhufano waxa loo yaqaan sheegay history-geena bayer dhowr mar baan lacag ku dirnay dhowr mar baan ka dirsanay waxaan u shaqeynay qaabkan okay dhowrkan qaab baan lacag ku dirsanay okay markii aynu ka soo baxno qaabkeen lacag u dirnay hadaba waxaynu u gudbinaa website-kii inoo kala turjumayay bayerna lacag u diriyay perfect money lacag u diriyay okay website-kii waa kan iminka waxaan doonaynaa inaynu inteenu perfect money lacag ka soo qaadno inaynu bayer keeno okay halkan waxaa weeye lambarka lacag diraha baad gelinaysaa xaggan hoose waxaad gelinaysaa loo diraha okay inshallah inaan isfahanno marinaya halkan waxaad gelinaysaa ka soo diraya halkan waa ka loo diraha okay halkan waxaan ku dhufanaa kadib waxaan ku qoranaa perfect money kaasra weeye e-voucher ku qoran tahay ka wax loo dirayo ka ii sheegay ka wax diraya oo saxda perfect money saxda markaasaan ugu dhuftid xagga hoose imaanaysaa halkan waxaan ku qoranaa bayer okay bayerka saxda isaguna waa kan markaad isagana bayerka saxda saan ugu dhuftid okay lacagta daba in gelin halkan waxaynu gelinaynaa $2 sidaan hadhow uga soo celino okay $2 marka perfect money loo dirayo bayer waa $1 iyo $0.89 $1 iyo adigu iska $0.9 weeye meelaas okay hadaba hoos baa u soo digaysaa halkan waxaad gelinaysaa waxa loo yaqaano adresska bayerkaaga xagga hoose waxaad gelinaysaa linkiga maarta ishagay email-ka perfect money-gaaga okay halkan hadaynu soo qaadano waxaynu tagaynaa waxa loo yaqaano waxaan dib ugu laabanaynaa waxa loo yaqaano bayerkeena markaan bayerkeena dib ugu laabano waxaan soo koobi garaysanaa adresska bayerkeena okay adresska bayerkaaga waa lambarkan aad soo koobi garaysanaysaa markaad lambarkan koobi ka soo qaadatay already uu ku yaala lambarka waa koobiyeysay dib baan ugu soo laabanaa website-ka kadib koobigan halka dhiganaa okay koobigi waa kan halkan xagana dhiganaa koobigi halkaasaynu dhiganaa koobigan soo qaadana waa kan okay daba adresska ku xiran perfect money-gana halkan soo gashanaa okay adresska anigii soo gasho waa kan perfect money-ga halkan adresskii bayerkeygana waa kan okay halkan waan tig saaraya daba term of use kadib waxaan taabanayaa preview okay preview markaan taabto xagta adres waa $2 $1.89 halkan ay ku taala kadib waxaad gelinaysaa lambarka xagga ku qoran ayaa halkan gelinaysaa okay waxa weeye C capital 3 U capital M F J okay haddaan khaldan lambarka waa sida okay sidaa arkaysid wixii na dhex geeyay perfect money-geena waxaynu ku dhufanaa halkaa ku qoran tahay make a payment markii make a payment ku dhufano waxaynu ugu soconnaa horey waxaynu gelinaynaa lambarka perfect money-geena ID-ga ah
okay idga perfect money markaan soo gelino halkan waxaan gelinaa lambarka xaq ku qoran okay marka xaq ku qoran waxa weeyaan 115 haddaan khaldanayn 45 okay kadib waxaa taabanaa preview payment markaas aad ku dhufatid koodhkan wuxuu kugu soo dirayaa gmailkaaga okay waxaynu teginaa gmailkeena ayaynu teginaa markaan gmailkeena saan ugu dhufano waa kan koodhka inoo soo diray okay koodhkan aynu soo copy garaysananaa koodhkan ayaynu copy ka soo qaadanaynaa waa kan koodhkii copy aynu odhanaynaa markaynu copy dhinaano waxaanu ku soo noqonaynaa websitekeena kadib halkaynu gelinaa koodhka si ay lacagtii inoogu dhamaystirmato oo complete noo ah continue baan ku dhufanaynaa markaynu continue saan ugu dhufano kadib waxaynu oranayaa perfect money-gan waxaa ku jirta $16.29 waxaa u baahantay inaad ka distay $2 waxaa taabanaysaa confirm payment markaad tiraahid lacagtii saas kugu baxaysaa keliya waxaa raacinaysaa continue okay continue markaan nahno lacagta way inoo baxaysaa waa kan hadda waxaa arkaysaa halkan ay ku qoran tahay payment statuskaaga inuu successful noqday orderka inuu complete noqday lacagtiina inagu dhacday okay waxaynu imaanaynaa bayarkeena markaan bayarkeena saan u noqono fadlan haddaadan casharka fahmin waxaa rajaynaynaa ku ceshitid bayarkeena ayaan waxaa u dirnaa refresh si aynu lacagta u helno okay bayarkeena waxaan u dirnaa refresh waxaa arkaysaa in halkaa $2 inoo soo galay haddii aan tagno payment historygeena waxaa arkaysaa in $1.89 ay noo soo gashay okay $1.89 waxaa arkaysaa inay soo gashay waxaa rajaynaya inaad horta fahanteen qaabka lacagta bayarka lagu soo dirsado okay haddaynu dib uga laabano oynu isla websiteka dib uga laabano oynu gadaal uga baxno okay gadaal uga bax okay idul qaata inta yaraan dib ugu laabanayo meeshaan ka yimid okay wakan dib baan ugu soo laabanay websiteka hadda markaan dib ugu soo laabano waxaynu tegaynaa hadda markii hore marka perfect money lacagta laga dirayo oo bayar loo diray halkan baa la gelinayay laakiin iminka waxaynu gelinaynaa halkan waxaa loo yaqaano bayarkeena okay bayarkeena gelinayna because bayarkeena hadda lacagta diraya bayar baynu gelinaynaa xagga sare markii xagga sare aynu bayar gelino halkan dhexe waxaynu gelinaynaa lacagta aynu bayar kasoo dirano okay lacagta aynu bayar kasoo dirano intaad xaggan gelinaya lacagta aad bayar kasoo diraysid waxaa kaaga fudud waan khaldamay cafwan yar ali ahaa waxaa kaaga fudud inaad isla bayarkaaga dhexdiisa lacag ka dirto okay dib haddaan uga soo laabano kaliya websiteka waxaad u baahan tahay markaad perfect money lacag kasoo diraysid laakiin bayar markaad lacag ka diraysid waxaa ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay transfer okay insha allah waxaa rajaynaya inaad qaybta kale ahaataan kadib perfect money-gaaga halkan buu ku yaalaaba dhibba ma laha perfect money-gaaga markaa saan ugu dhufatid isdhibi maysid kaliya halkan waxaad gelinaysaa amountka rabtid inaad dirtid halkana automatic bay isu gelinaysaa markaa lacagta halaan gelisay automatic ahaan bay halka isu gelinaysaa halkana waxaad gelinaysaa waxa loo yaqaano ID-ga perfect money-gaaga okay ID-ga perfect money hadda soo doonno uu noo saf garaysan yahay kadib lacagtan u baahannahay amountiga u baahannahay waxaan ka gelinaa amountiga u baahannahay waa $2 ii sheegay 29 oo khidmadda ah confirm $1.99 buu kuu dirayaa okay confirm baan idhi confirm markaan idhaahdo waxaa lagu yidhi $1.99 baa lagu dirayaa waxayna ku dhacaysaa perfect money-gaaga okay baan odhanaynaa waxaynu taabanaa meesha ay ku qoran tahay confirm markaynu confirm daabano oo reed hadda lacagtii waxaa arkaysaa inay noo baxday transfer completed okay markaad tiraado transfer complete waxaa taabanaysaa meesha ay ku qoran tahay close markaa close ku dhufatid dib baan usoo laabanaa waxaa arkaysaa in 20 cent inoogu hadhay waxaa loo yaqaano bayarkeena okay waxaa arkaysaa iminka haddaan tagno transfer historygeena haddaan tagno iminka transfer historygeena haddaan ku dhufano waxaa arkaysaa $1 iyo waxa loo yaqaano 0.99 in loo diray aduu iska $2 in loo diray perfect money-geena oo ID-geena uu kan yahay okay haddii perfect money-geena dib ugu soo laabano waxaa loo yaqaano perfect money-geena waa kan haddii perfect money-geena dib ugu soo laabano waxaad arkaysaa in lacagtii ay dib inoogu soo laabatay okay cafwan yara raali ahada culays badan baa xagga khadka ka jira waxaad arkaysaa $1 iyo 0.99 inayna soo gashay okay websiteka saa idiin sheegay waxaa idinku yidhi marka lacagta perfect money ka diraysid baad u baahanaysaa websiteka websitekan waa website maaragtay aad iyo aad u fiican oo website maaragtay money reliable oo lacagta marka aad dirtid isla markaaba lacagta uu kuu diraya okay lacagta marka aad diraysid waxaan ku haddaan kugu celiyo waxaad tagaysaa perfect money markaad joogtid ood ku dhufatay perfect money-ga xaggana waxaad gelinaysaa bayarkaaga okay
markaad baayarkaaga ku dhufatid waxa loo yaqaano sug baayarkaaga markaad baayar saan u dhufatid kaliya lacagta halkan waxaad gelinaysaa waxa loo yaqaano lacagta loo baahan yahay lacagta rabtid inaad dirtid baa halkan gelinaysaa meeshan hoose isaga automatic gelinaya hadda markaan rabo inaan $10 u diro baayar $9 iyo 0.5 ayaa loo dirayaa baayarkayga halkan hoose waxaad gelinaysaa baayarkaaga addresskiisa okay deeno baayarkeena addresskiisa soo qaadano waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay baayarkaaga kadib baayarkaaga aad soo koobi karaysaa okay baayarkaaga dib ugu laabanaysaa waxaad ku dhufanaysaa halkaas account numberka dhufatid account numberkaaga soo koobi karaysaa okay account numberkaaga markaa soo koobi karaystid waxaad saaranaysaa halkan okay waxaan rabaa for example mar labaad inaan ku celiyo halkan baad saaranaysaa okay halkan baan rabnaa inaan saarano okay markaad saa u soo saaratid oo arkaysid inaad saaratay halkan waxaad gelinaysaa gmailka uu perfect money kuugu samaysan yahay cafwan waxaan rajaynaya inaad fahanteen gmailka uu perfect money kuugu samaysan yahay halkan sare waa xarksaa your wallet maarta ii sheegay BRUSD haddaa aragtid waxa weeye waa Bayer USD gaaga okay xagga hoosena your valid email waa emailka perfect money gaaga baad gelinaysaa okay kabacdina waxaa ku dhufanaysaa term of use waxa loo yaqaano kadib waxaad taabanaysaa preview lacagtii toos bay kuugu baxaysaa already waxaad maraysaa istaabiyadaha perfect money gaaga tag kadib waxaad gelinaysaa ID gaaga iyo passportkaaga kadib waxaad gelinaysaa kolka kuugu soo dirayo gmailka kadib continue kadib make a preview kadib maartay make a payment waxyaalo yaraaye perfect money loo sii meejiyo si maraysaa kadibna lacagtaasi already orderkaaga complete noqonaya waxaan rajeynayaa inaan madda isla fahnay okay website-kan isaga waxaan soo dhigi doonaa linkigiisa telegramka aan leenahay waxaan soo dhigi doonaa videoga descriptionkiisa waxaan soo dhigi doonaa commentka u horeeya ee videoga aan soo geliyo insha Allah waxaan rajeynayaa fadlan hadaad channel ku cusubtahay subscribe like and share and comment waxaan rajeynayaa inaad iga haystaan qaabka loo sameeyo barrier qaabka loo sameeyo ii sheegay perfect money oo perfect money isaga laftiisa waxaa ku dhufanaysaa sign up kadibna waa sign up garanaysaa kadibna perfect money isku diiwaan gelinaysaa perfect money video hore aan uga hadlay oo channelka yaala haddaan soo daawan fadlan soo daawo insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax walba iga haystaan anything website-kii isagana waan soo wadaa favorite ahaa fadlan hadaad channelka ku cusubtahay subscribe like and share and comment السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.